musharaxii madaxweynaha xisbiga ucud Jamaal Cali Xuseen ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera ee gobolkaasi Saaxil isagoo si weyn halkaasi uga hadlaysa markaana tibaaxay inuu gabi ahaanba iska casilay xisbigii ucud ee muddada uu ku soo jiray warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada Berbera nooga soo dhaliyay Axmed Saciid waanu kula jeclaynayna horgal waanu ku jiboonayna horgal kulmiyaad ku biirtayna horgal oo wiisha murashaxa xisbigii wicida ee dhawaan u kala jabay labada garab aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta si ballaaran lagu soo dhaweeyay magaalada Berbera iyo deegaanada ku teedsan jidka halbowlaha ee isku xidha Berbera iyo Hargeysa waftiga musharaxa xisbiga wicid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen oo saaka ka soo boqolay dhinaca caasimadda Hargeysa ayaa taageerayaasha xisbigaasi ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen magaalada Abdaal ee xarunta degmada Madheera iyo deegaanada u dhaxeeya magaalada Berbera sida tuulada Lafaruug Xamaas iyo Darigodle taageerayaashan oo watay gaadiid aad u tiro badan isla markaana lulayay caleemo qoyan ayaa musharaxa u soo galbiyay dhinaca magaalada Berbera waxaana soo dhaweynta musharaxa xisbiga wicid aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen maanta si weyn uga dhex muuqday mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda ugu horeyna waxaa fagaaraha loo sii diyaariyay murashaxa xisbigaasi ka hadashay Roode Axmed Yaasiin oo iyadu furaha ku wareejisay xafiiska uu ku leeyahay xisbiga wicid magaalada Berbera mar labaadna iyadu cadaysay inay musharaxa ku kala aragti duwanaadeen siyaasadda mustaqbalka waxaana hadaladeedii kamid ahaa waxa kale oo dhan kuma kala tagi karno waxaan sheegayaa dadka in aan Jamaal Cali Xuseen halkaan anigu doortana uu garab iyo gaasaan ag taagan yahay isagu halku doortana aan ag taaganahay oo haddii aanu siyaasadda ku kala tagno wax badan inaga dhaxeeyaan waynu la soo shaqaynay waynu la soo kifaaxnay xalay tamaan seexan habeen hore maan seexan waxaan ku halku tagana oo yaabo iyaga bis wanaagsan iyo wax qabadkiisa oo horumar samayn doono oo xoogayga iyo xuduudeeda baanu ku muujinaynaa inaanu Jamaal la garab taaganahay halku uu ku biyo shubanayo iyo go'aan kastuu qaadanayo iyo hogaamin kastuu noo samaynayo halkan waxa ka muuqda reer Saaxil ee halkan isugu soo baxay ee ku soo dhaweynaya mudane Jamaal Cali Xuseen oo yimi gobolkiisii iyo dadkiisii ay u soo baxeen oo ku soo dhaweynaya u soo baxay aad baan idinka mahad jeedinayaa maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa isaguna madashaasi ka hadlay isagoo soo dhaweeyay safarka uu murashaxu ku yimid gobolka Saaxil iyo kulanada uu la qaadan doono bulshadiisa ee ku aadan bedelka aragtidiisa siyaasadeed ee mustaqbalka gabagabadiina waxa munaasabadaasi ka hadlay murashaxa xisbiga wicid kaasi oo dadweynaha reer Saaxil uga mahadnaqay soo dhaweyntaasi isagoo shaaciyay inuu ka baxay xisbigii wicid isla markaasina taageerayaashiisa ugu baaqay inay tuuraan calanka xisbigaasi guuldareystay ee wicid isagoo sidoo kalena ku dardaaray inay qaataan calanka xisbiga uu u diga rogan doono oo uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono saacadaha soo socda kadib markuu wada tashi la sameeyo bulshada qaybaheeda kala duwan ku sawiran yahay ayaa lagu khiyaameynaya horta isma lahayn laakiin markan meel wanayo waraabiyo isugu tagay iyo cadaalad beera laakiin waxa idin ballan qaaday inaan dib dambe cid dambe u khiyaameyn doonin insha Allah taala warmaninka intuu halkaas soo istaagay yiri ana khiyaamay waan dhacay waan maartay waqtiga noo xalaal aha markaas uu galay insha Allah taala weyn guulaysan doonaa wax laga xishoodo ayaa waartay u dhacay marka inaan ku qosolno mooyaane gobolaha si kale horta ma jirto ilaahayna waa caadilo waa nafsigeena horta wayna siinaya nafsigeena wayna siin doonaa waxaan maanta haddaba halkan idinka sheegayaa xisbigii sidaa ahaa ee ku soo tacabnay ee xoog iyo xoolaba aan gelinay ee codkeennu ku soo saarnay ee idinku aad kow ka haydeen ee Somaliland koone ilaa koone looga gurmaday haddii xisbigii maanta uu sidaa noqday waxa weeyaan inaan ka diga rogno waa lama horaan weeye maanta waan idinla joogayaa waan idinla sheekaysanayaa fikradihiinina waa idin weydiinayaa insha Allah anigoo Berbera jooga
ayaan ku dhawaaqi doonaa halkan aan u digarogan doono insha Allah anigoo berbera jooga laakiin maanta xafladan soo dhaweynta waxaan doonayaa in aan ku sheegno inaan xisbigii ucid aynu ka baxnay maanta laga bilaabo oo aynu tuurnay calankiisana tuura waa Axmed Saciid Maxamed telefishinka caalamiga ah ee waa Bari TV magaalada Berbera.